الرحمن الرحيم halkan waxaa diyaar ku ah fadhiya mas'uuliyiintii qaybaha kala duwan ee telefishinka qaranka Soomaaliland oo ay ka mid yihiin wasaaradii warfaafinta oo dhan idaacaddii iyo TV-gii labadaba madaxii barnaamijyada ee telefishinka qaranka Axmed Sawir Same ku xigeenkiisii Cabdisaaq Cismaan Solna oo gudoomiye ku xigeenkeedu fadhiyo madaxii wararka ee TV-ga qaranka madaxii shaqaalaha ee wasaaradda warfaafinta ku xigeenkii tifatiraha guud iyo rag kale oo tiro badan oo aan isleeyahay kulli waxa weeye labeentii wasaaradda kulankan iyo warbaahinta inaan isugu yeernay saaka uma naan qaban inaan cid ku macaaradayno uma naan qaban in aan cid ku dhaliilayno uma naan qaban inaan cid ku soo baranayno waxaan u qabanay kaliya in aanu ku sheegno oo aanu halkan ka xaqiijino in wasaaradda warfaafintu ay u baahan tahay inay hesho geedi bay ku jirtaa oo way heeriyeysan tahay ciddii si wanaagsan u hogaamin lahayd xaqa u lahayd ee mataqaanaa si aad u qurux badan u hagi lahayd marka laga hadlayo goobaha shaqada iyo wasaaradaha iyo howlwadnada marka nin dhaktarihi oo meel ka shaqeynayo lama ila dhakhtarkii waxa weey gebigaaga meeshii ka soo baxo beeshina uu yaalo shaqo ka soo aynu haynaana waa beeshin wasaaradda warfaafintu waxay leedahay howlwadeeno adag waxay leedahay dad howlkara oo hawsha ay hayaan aad ugu gacan banaan haddii wax la isku shaandheynayo iyo haddii wax la bedelayo qofna waxa weey meesha kama bixin qofna lama dhalan qofna xilka la saaxiib ma tusaale ahaan ana iska soo qaadayo isugu horreysiinaya abiibahan anigu maanta 25 sanadood baan ka shaqeynay wasaaradda warfaafinta xil wasiir iyo magacaabo ciil iimaha iyo calan iimayso mana doonayo diyaaromay waxa sugaya xil uu madaxweynayo magacaabo waan ka koray intii wasiir xil iyo magacaabay 12 sanadood waxaan ku shaqeynay digreetooyin wasiir igu magacaabo marba intay doonto hal leekaatee laakiin maanta waxaan xaqna u leeyahay kaliya iga maqan oo aan sugayana waxa weey in aan helo digreeto madaxweyne oo aan xil ku qabto oo dalkayga iyo dadkaygaba aan xaq ugu leeyahay oo aan sugayo laakiin in shaqo aan hayay oo qurux badnayd oo sideeda u socotay dhinac kale mid nin ila darajii uu haddana cidafka intuu qabto oo xagga dambe matana ay reebo dhici mayso aan hoos u dhaadhaco waxa jirtay isku shaandhayn la hadal hayay oo wasaaradda lagu sameeyay waan soo dhaweynaa horta wasiirka warfaafinta nin aad wax u qoro oo way matana xagga qoraalka qof markuu fiicnaa kulli wax badan baa malaha xagga hadalka ee hoos mara wasiir ku xigeenka waa soo dhaweynaynaa dadka uu magacaabay ay magacaabeena waan soo dhaweynaynaa wasaaraddu waa wasaaradayadii shaqaduna waa shaqadayadii laakiin waxa kaliya oo aanu cadeynayna haddii wax la isku shaandheynayo iyo haddii wax la kala bedelayo iyo haddii wax la soo kordhinayaba waxay ahayd in loo sinaado oo shaqaalu si isku mid ah ay ugu sinaadaan waxa dhacay in xubno kamid ah agaasimayaashii la bedeli lahaa iyo labo la taliyaashii faraha badnaa ee wasiirada kamid inta ay hudheel kareysteen oo ay muddo joogeen ay soo qoreen list aniga kanaan u abtiyahay igu dar kan ilmaadeer baan nahay kan habeertay iyo u dumaashiya ee igu soo dar dad baa la soo dalacsiiyay dadna waa laga soo reebay isku shaandhayn qaar naga mid ay sameeyeen oo la yiri intaana waxa ku sameeya intaana waxa ku sameeya taasi xaq iyo dootoona ma ahayn wasiirku waxa wallahi oo halkan ka cadeynaya aniga inaan magacay garanayn xilkaan hayaan aanu garanayn sidoo markaa ii bedeli lahaa markaa wasiirkii isma aanan baran bay waxa yahay in la isdhex galo in la isbarto shaqada qofka ku wanaagsan maanta ana haya birta Cabdisaaq baa haynaya Axmed Sawir Same haynaya waxa la wax ku jaban ma jirto wasaaradda warfaafintu 25 sanadood ka soo shaqeynay dawlado fara badan ayaa soo maray dawlad kasta iyo xil kasta oo joogana waxa inta badan caqabado ay ka timaada xagga maamulka shaqadu sir bay leedahay sirta shaqada waxba ka sheegi maayo ku xadgudbi maayo laakiin hal baan sheegi doona aan laga maarmin waxyaabaha igu soo maray hadii lagu yiraahdo maxaad ka xasuusataa oo kugu dhibadnaa wararka ku soo maray muddada kala duwanaa madaxa wararka soo ahayd waxaan malaha maskaxda aan ka bixi doonin ninka maanta dalka madaxweynaha waa Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa isagoo mucaarida ayaa warka sameeyay madaxa wararkan markii aan ka sameeyay markaa warka waxa ku jirtay Muuse Biixi waxa uu sheegay in xisbiga kulmiye ay nabad doonayaan deganaan ay doonayaan ay rabaan dalku inuu horumar sameeyo warkii baan ku daray subaxnimadii baan imay xafiiskii
waxaan ugu warqad intaa leeg oo leegu leeyahay adeer waanu kaa bedelay madaxii wararka shaqadiina waanu kaa qaadnay deetana madaxdii baan la xiriiray maxaa dhacay baan ku iri war ma raggii aan ummadda ku kicinaynay baa tidhi nabad bay doonayaan ayaa jawaabteeda ay noqotay deetana markaasaa waxaan dareemay halkaan joogay iyo saan u shaqeeyo inaan islahayn anu ma rabo dalka in burbur ka dhaco ma rabo qasinu dhaco ma rabo laakiin haddana maxaa warkii aad ku ilaaweysaa marka hindisihii wixii adigu aad dareemaysay la arko wixii sidii adigu aad ahayd bataan aad u rabtay ay wax u dhacaan ti aanu anagu markaa doonanay sidaan wax u arkaynay bay wax u dhacayeen taasaad ka gamaysaa magac iyo mansab iyo maamuus iyo tixgelin iyo qadarin baanu ku qabnaa shaqada aanu qaranka u hayno waxaan leenahay oo keliya may ahayn sacaadatul wasiirka warfaafinta iyo ku-xigeenkiisaba in 4 xubnood oo ka mid a dadkii aad bedeli lahayd ay shaqaalahaagii oo dhan bedelaan may ahayn in hudheel intay ku shiraan mataana ay warqad kuu soo qoraan oo aad saxeexdo waxaan kaga baxayaa fariin aan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland aan u gudbinayo oo aan leeyahay mudane madaxweyne waxaanu nahay ciyaartooy adag oo qaranka u safto oo u ciyaarano ilaa haddana diyaaruma nihin inaan kooxo kale u ciyaaro qarankaan u ciyaarayna waa ku ag taaganahay waa kula dhimanayna waana kula shaqaynayna meeshii aanu joognana waxaanu nahay wakiilo iyo ciyaartooy u heegana mar walba dalka iyo wasaaradda warfaafinta iyo horumarinteedaba haddii la doonayo wasaaradda warfaafintu inay horumarto microphone ammaanaan ku shaqeeya xarig ammaanaan ku shaqeeya computer antivirus aan lahayn baan ku shaqeeya miisaanadeeduna waa malaayiin dollar in kuwa la hagaajiyay bay hadal leeyahay markaad intaa hesho TV-da kale la tartan laakiin iyadoo intiiba ay baaba tahay haddana haddii la yidhaa dhiig cusub aynu isku shubnay hebel baa dhiiggii inoo shubaya dee malaha dhiig AB u baahneed wasaaraddu dhiiggii AB dahana labada qof ee isku shaandhada soo sameeyey ayaa laga helay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta hadalkani waan soo gaagaabinaynaa warbaahinta kala duwan ee somaliland halkan kasoo qayb gashay aad ayay u mahadsan yihiin sidaa waa sheegay dee nuxurkiiba isagaa dhameeyey horta annagu umaanaan iman halkan ujeeddadaan u hadlaynana maaha in aanu ku macaaridno dhalinyaro la magacaabay oo annagana beddelaysa umaanaan imanin in aanu diidannahay ama aan u hadalno madaxdayada wasiirkayga iyo wasiir ku-xigeenkayga umaanaan imanin inaanu shaqadeeda ku macaaridno dalku waa dalkaygii qarankani waa qarankaygii ummaddan waa ummaddayadii sidaa uu sheegayo 25 sano uu joogay maxamed xuseen waa ka soo dhowray 40 sano ayay ku maraysaa anna malawa sanadkii 30 weeyaan marka waxa intaa loo joogay loo shaqeynayaa dee waa sidii looga tallaabsan lahaa halkaa la joogo ee hore looga socon lahaa taas waa taa haddaan kusoo durko hadalka sidaynu ka warqabno dhowaan xukuumad cusub ayaa dalka timi madaxweynuhu wuxuu u soo magacaabay wasaaradda warfaafinta mas-uuliyiin cusub mas-uuliyiintii cusbad markay yimaadeen waxay ka bilaabeen in ay xog warsadaan bal xaaladda meeshu siday tahay maxaa yaala maxaa xun maxaa khariban maxay la socon lahayd wasaaraddii xafiis bay u galeen qof ayay u tageen wasiiradii waxay ka marag fureen in meeshii ay tahay meel baaba'san oo kamaradiinni leeyahay oo kombyuutarkiinni leeyahay oo mikrofoonkii inanka sito madaxa ayay qabsadeen waanay ka garaabeen xaaladda meesha taalla waxaanay qireen inay tahay xaalad maamul xumo oo meesha ka jirtay waxay ballan qaadeen in ay markaasi wax saxayaan oo ay wax hagaajinayaan saxiddii waxay ahayd in halka ay ka xun tahay markaa ay ka bilaabaan waayo qof lagu bedelo wax macnaa ma samaynayso haddii maanta aniga laga bedelo hebel la keeno oo laakiin nidaamkii iyo systemkii aanu hagaagsanayn wax alla wax ka hagaagaya ma jirto waxaa haddaba jira wasaaraddan warfaafinta dad iyagu virus ah fangas ah wasiiro ay magacaabaan agaasimayaal ama la taliyaal wax sheegta wasiir kasta oo yimaada cunaha isaga duuba wax kastoo khariban iyagu khariba shaqaalihii iyo madaxdoodii kala dhex joogsada been u kala sheega dadkii soo kala dhawaysta cid kasta cunaha isaga duuba si aanay u soo bixin ama aan loo ogaan inay iyagu yihiin kuwa dhibta wada nasiib darro haddaba wasiiradu xaqiiqa raadintoodii iyo wixii ay arkayeen markii ay isiraahdeen wax ka daya waxay noqotay kuwii loogu horraysin lahaa meesha laga saari lahaa wax kharibay inay iyagu hoggaankii qabteen oo ay leexiyaan
oo ay mararsadaan taladii oo ay iyagii yidhaahdaan wasiir annagaa soo hagaajinaynay halkan iska fadhiyo nagu sug 10 casho wasiirka xafiiskiisa looma gelin ka soo fadhiyo hodheel baa la kireystay oo qol laga kireystay dadka suuqa looga yeedhayay halkanna yaynu siinaa halkanna yaynu dhibnaa hebel u yeedha ma haddana hebel kale loo yeedho hebel baa kaga faan ma hebel kale haddana suuqa looga yeedho marka wasiirku waa wasiir sharaf leh qoys sharaf leh buu ka soo jeedaa waa nin qoraada waa wiil waliba anigu aan abti u ahay oo aan aad u ixtiraamayo laakiin waxaan leeyahay wasiir waxaa tahay wasiirkii ugu horreeyey ee muddo intaa ku kooban degdeg ku sameeya wax aanu ka fiirsan ama aanu ogeyn maanta anigu madaxa barnaamijyadan ayaan ahaa waxaa laga yaabaa wasiirku inaanu magacayga iyo isku aqoon iyo wejigayga waxaa taa tusaale u ah shaqu loo diro tegi buu yidhi meel baanu tagnay anagoo seelac joogna ayaa inanta xogaynta buu la soo hadlay madaxii barnaamijyada igu yeedha buu yidhi waxaa lagu yidhi soodigii seelac u dirso seelac ku maqan maxay taas caddaynaysaa inaanu qofka magaciisii iyo wejigiisii isku garanayn dee dadka kale iga soo hoosay shaqaalaha kale iyo dadka aanu xilalka soo qabaan aanu garanayna hadalkoodaba iska daa marka waxaan filayaa waa la badan yahay wax badan oo hadala ayaa inoo harsan anagu diyaar baanu nahay shaqada madaxdeeda waanu ixtiraamaynaa shaqadeeda qarankayga ummaddeeda waanu u shaqaynaynaa horena waanu ugu shaqaynaynay laakiin mushkiladdu waxay tahay in cudurkii la daweyn lahaa isagu hadduu wax daweynaayo dee dawa jiri mayso way sii bukaanaysaa marka intaasaan kaga baxayaa shaqaaleeya wasaaradda warfaafinta malayn maayo hadalka de wax dhameeyey intii iga horreysa hadalka dhammaystay inaan kusii tegaala dooni maayo waan la qabaa waxaa isu kaayo keenay un maaha xilkana laga qaado wallaahi inaanan maanta aanu diyaar ahayn haddii xitaa dib laydhaa waa lagu magacaabaya inaanan maanta diyaar ahayn inaan qaato ujeeddadaan ka hadlayaa un waxa weeyaan qaabka naloo bedelay ayuumanu yeesalgu ciddana bedeshiinahayn cid dhigayaga oo kale ah taasuma tallaabada keliyaanu qaadan kari weynaa ahayd wasiirkana dhibaato la dhex martay iyo shaqa aanu guda weynay iyo ujeeddooyinka dee dadka lagu bedelo waa la yaqaano ninka shaqadiisa garan waayo in bade la bedelay waa sidaa uu sheegay axmede maan inaanu la garanayn baan ugu dhaaran karaa anugu madaxii dhammeeya shaqaalaha inaanu wasiirku iba aqoonba waa nasiib daro laakiin waxaan anugu xalay tole wasiirku waa hadlayey su-aalaha nooca la weydiiyey cid gaara uu kala tashaday hawshan wuu sheegay wasiirka liftiisa wuxuu koox baan wadatashi kala yeeshay buu yidhi kooxdan wadatashiga kala yeeshay waa kooxdii aan nala midka ahayd ee inuu shafarka ku sameeya ahayd taasina waxa weeya nasiib darreeda leedahay wasaaradduna saa kusii socon maysaa dee haddii wasiirku dee gruubkaas midda kale waxaan ku yar noqonayaa rag badan oo de xilkana laga qaadaa jiro imika halkan joogin laakiin iyaga waxa lagu laalushay guddi baa ku jirtaan baa lagu yidhi guddi taa macnaheedu waxay ti gurnadii yareed baa qaadanaysaane ha ila guddi kaloo meesha ma jir ma guddidu waxa weeye de guddi ashax baa jirtaa wasaaraddu leedahay wasiirkii baa jooga agaasimii gud baa jooga madaxdii agaasimo waxaadadeedu ma jooga guddi waxa looga baahaya board wasaaradda warfaafintu leedahay dee waa waxaan u arko noolaada un idinka ha rawaxine ma sii jecliinaan sirta xafiiska iyo sirta wasaaradda inaan ka sii warramo waxyaaba badan baa jira laakiin waxaan leenahay wasiir anu waxaan caddaynaya wasiirka inuu daacadiyey laakiin ay daalimiin badan heshay dee kollay go'aan qaadashaduna waa qayb ka mida mas-uuliyadaha ilaahay dee dadka uu u abuurtay markaa waxaan odhan lahaa arrintaa iyadaa dib ha ugu fiirsado wasiirku asalaamu calaykum waxaasoo dhan uga gol leeyahay waxa weeyaan weli dubbuhu wuxuu gawda ku hayaa meel baydhsan wasaaradda warfaafinta markaan ka hadlayo waan u hambaliyeynayaa wallaahi oo bilaahi oo tallaahi si niyada ayaan ugu hambaliyeynayaa anigu afka intoodana ku hadlayaa dhalinyarta la magacaabay mid kasta oo ka mid ah
wallaahi inaanan midna ka xumayn waayo waan jecelahay dhalinyar la magacaabo waxaan maanta waxa weeyaan nin caruur le waan ahay waxa weeyaan sidaa anigaba lii dhiirigelin jiray markan yaraa ayaan jecelahay dhalinyartana inaan u dhiirigeliyo waananu la berber taagannahay dhalinyartaa la magacaabay in aanu ku garab galno oonu kula shaqayno xilkaasi loo magacaabay ha laga qaado ma lihin oo walla iyo bileeyo talobe naga tahay ilaahay baa naga sarreeya waanu la jecelnahay dhalinyaradaasi mid ka mid oo mid kasta oo ka mid ah waayo waa kuwii aan go'an qaban lahayn laakiin tanu doonaynaa waxa weeyaan wasaaradda warfaafintu si ay horumar u gaadho intaasoo wasiir baa lasoo magacaabay shaqaala is haystaa la yidhaahdaa madaxdiibaa is haysataa la yidhahdaa shaqaaliyo madaxdii baa maantana waxaa laga yaabaa marka shirkeyga jarayd la arko in la yidhahdo wasaaradda warfaafineed isma haysato wasaarad warfaafineed shaqaalaha imika markay halkaa ka wada baxaan hawlahoogiiba wada gelayaanoo dhammaantaya waan wada shaqaynaynaa qarankaan u shaqaynaa nina meesha ma laha laakiin tan doonayna waxa weeyaan waxbaa mar kasta caqabad ku ah inamadaa maanta la magacaabay berrit hore ka maalin baa iyagana la odhan doonaa waxa weeyaan cid kale ha lagu bedelo waxba way soo kordhin waayeen taa waanu ka cararnaa inamadii in hadhow tolada haddana la yidhaha waxbay soo kordhin waayeen war inamadan maanta loo magacaabay wixii wax u sixi lahaa hadday qalab tahay hadday system iyo nidaamka kala sarraynta iyo maamul hadday tahay waxa weeyaan tababaraa loo baahan yahay shaqaalihii la siiyo dhalinyartii tababaro la siiyaa loo baahan yahay runtii ragga waaweyn leh waa dadka aan ugu nimi wasaaradda warfaafinta isbeddelka dhacay anugu waxaan ka mid ahaa dadkii liiska wasiirka cusub uu magacaabay ku jiray ee ka midka ahaa ee uu ku soo saaray dabeetana runtii marka la eego wakhtiga naloo keena shaqadan ku wada jirnay dhammaantayo dadka meesha laga bedelayna waxaan qofkii ugu yaraa inta liiska laga wareejiyay markaan anigu telefishinka gaar ahaan ka hadlayo qofka ugu daada yar baan ahaa ee la joogay nimankaa dabeetana maqribkiibaa adu calaaya itixaal la soo saaray oo lagu yidhi meeshii isbeddel baa dhacay isbeddelka dhacay aniga waxaa lai soo sheegay in aan ninka meesha sii haysta ahay agsaa loogu tagaa maadaama oo nimankii kale la bedelay waxaan kala garan waayey waxaa ku kalifay saacad makhriba oo nimankii iga sirey gacanta ay ku hayaan oo aan baashii meeshii socoto waxaa kalifay in digreeta la keena xilligaa oo la idhahda gebigiinoo meesha ka dareera waa midaan garan waayey waxaa kaloo garan waayey oo meesha iyana taalla liiskan la soo qoray haba lagu soo qora waxa layga reebay iyana waan garan waayey oo waxaan isirniyow inta ay nimanku sheegayaan baa runa oo malaa cabdirasaaq wasiirka dhowr jeer baad sir warwareysatana malaa magacaa uu ka dhex gartuusid malaa ninkan wuxuu ahaa ninkii cabdirasaaq weeye waxaan wasiir jeclaan lahaa hadday taladu adiga kaa soo go'day oo ay wasiirka ka soo go'day runtii dee meeshaadu madaxweynuhu kuu soo egmadayo uu ku yidhi qarankaada iga wakiila oo iisii jooga oo meeshii qabanaya inay sideeda tahay oo saa ay ku ahaato haddii laakiin sida la arkaya niman ishayo oo meesha rag waaweyn oon ugu nimi oo wasaaradna qaarkood aasaaseen oo qaarkoodna cigaal la bilaabeen qaarkoodna duurka ka soo hadlayeen markay baashu taallay duurkaa balligubadle markay taallay ka soo hadlayeen oo ilaa balligubadleysi soo haystay inaad inaad u maqasho qaar ka mida nimankaa may ahayn oo tilaahida habelow kanaan kuu maqlaye sidaad sheegteen bay ahayd muddo 2 bilood ku dhow baana joogtaa in albaabka soo xidhatana may ahayne inaad tidhahdaan bal nimankan aan eryayo iyo tusa yay yihiin dee waa nimanka halka ka hadlaya yay yihiin waa nimankii meeshan dhiigooda usoo shubay weeye qarankana waxay ka mudnaayeen maanta waxaas iyo waxaan ahayn bay ka mudnaayeen runtiisii oo qarankana ka mudan yihiin waanay ka mudan yihiinoo haddii wasaaradaha dawladda isku shaandhayntooda ay iska fududaato halkan qof kastoo joogaa wuxuu dhigmaa wasaarad buu dhigmaa oo waxaa la eegaa influensiga uu yeelanayo waxaad qabanaysaa marka horeba qofka bedel laakiin u yeedho wax ku tira meeshiinii waynu bedelinaaye kana taliya ciddaana waan keenaya markaa mid hadiida ku idhahdaa keeni laakiin rag shaqadii gacanta ku hayan iyo araygaasi muu qabanaynin haddeer sii xaalkeeda meeshaasiina hagaagto waa meel raggaasi ay iska leeyihiin naga waaweyni waa raggaanu kalena shaqaynayno nimanka aad keentayna waynu la shaqaynaynaa laakiin imikada laftirkeeda si ay meeshu hagaagtay siyar kaba wada raaciyo waxaad tidhaahaa halkaa u sarraysana ku yaroo kalean u dhiibay halkaa hoosena ku yaroo kalean u dhiibay intaan baa kuu sheegay kugu yidhi annagu waad wanaagsaneed raaciso kuwo kalaa joogay annaga kuwaasuun soo raacinta hadhay oo hala yidhaahdo meeshii waynu yar wada banan inaan hala shaqeeyo oo talada midna waan soo dhaweynaya waxaa tii waa isbeddelkii kowaad ee wasaaradda ka dhaco kuwo kalena waa soo socdaan dee kuwa kale hadday ku jiraan
nimankaa la leeyahay waxbay soo qoreen wallahi si daacada meesha isku hagaagsan ku shaqaysa haddaanay kuwaas ku jirin kuwa kale yihiinna waa arrinta hadhay iska taa iska sii joogaan wasaaradda wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh meehi dadka magacaabnaa ee xilalka hayay waxaan ahay shaqaalaha wasaaradda warfaafinta gaar ahaana telefishanka qaranka ee muddo 20 sano ku dhow ka soo shaqaynayay imika ee ugu dambeeyey waxaan ahay dadka ahaa inay dallacaan oo han lahaa oo ay muddada maadaama aan shaqaynayay seniorkii wasaaradda ka mid ahay waxaan xaq u lahaa inaan dallaco halkii aan sugayay inaan dallaco waxa ay noqotay in ma garanaysaa qof aan sanadba joogin waan u hambalyaynaya horta madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mas-uuliyiinta uu noo soo magacaabay ee odayaasha ee xilkaska waananu ku soo dhowaynaynaa shaqada iyo hawsha uu madaxweynuhu soo egmaday kuwa ay magacaabeen maanta kama xumin waa inamadayadii waa kuwaanu tababarnay waa kuwa nala shaqaynayey waanu soo dhaweynay waanu ku hambalyaynaynaa min madax ilaa mid meel kastoo loo magacaabayba waxaanu leenahay ku soo dhowaada wasaaradda warfaafinta gacmo furan baan idinku soo dhowaynaynaa waanu la shaqaynaynaa xilalkana ilaahay idinku asturaanu leenahay waxaa keliya ee cabashadu ka taagan tahay maaha mas-uuliyiinta la magacaabay waxa weeye wasiirka iyo wasiir ku-xigeenku xaq bay u leeyihiin inay dadka iyagu kala xushaan siday u kala garanayaan iyo siday u kala u darseen iyo siday u aqoon ugu kala xusheen iyo siday u kala karti badan yihiin inay ugu xushaan weeye taasina waa tuu madaxweynuhu soo egmaday laakiin wasiirada wasaaradda loo soo magacaabay kasakoo cabashada ay dhegaysteen qof ay garanayaan ma jiro waxay kala tashadeen kuwii barasaytka ahaa ee wasaaradda ku noolaa ee dadka dheecaankooda cuni jiray habeenna ma helo habeen dhex ma helo caafimaad ma helo waxaan ahay mas-uulintaa ka soo shaqaynaya wasaaradda warfaafinta kuwii cunayey marka lagala tashado cidda la magacaabayo cidda uu isagu doonayo dee keenaya waxa weeye wasiirku inuu isagu go-aan ka gaadho markuu hebel barto ee uu hebel shaqadiisa ka soo bixi waayo inuu isagu bedelo laakiin marka ay noqoto kii bahalkii barasaytkii meesha jooga in lagaala tashado dee waxay noqonaysaa ayaan daro marka annagu waxaanu leenahay wasiirada waan idinku hambalyaynaa shaqadaa hawshaa qabateen laakiin kuwa barasaytka dadka ku dul nool ha lagu soo daro dadka xilka laga qaadayo waxaana ugu horeeya kuwa maamulka iyo lacagta de marka wasaarada wax laga bedelayo marka hal lagu soo daraan loo agaasimo waaxidyada iyo la taliyayaasha barasaytka dadka ku dul nool wassalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa xasan maxamed muuse waxaan ka mid ahay wariyaasha ka howlgala wasaaradda warfaafinta waxaan ahay wariye ka howlgala idaacadda radio hargeysa iyo telefishinka qaranka somalilan waxaanaan kole ka mid ahaa inta badan nimanka raashinka uu tv-ga quutee wararka inta badan meesha geeya waxaa meesha ka dhacay oo wasaaraddii maalmihii u dambeeyey hadalhaynteedu ay taagneyd inuu wasiirku isku shaandhayn sameeyey wasiirka isku shaandhayntuu sameeyey horta waa miduu xaq u leeyahay xaq ha u lahaadee laakiin cidda ka talisay cidda ka tala bixisay cidda ka arrimisay cidda go'aanka iyo geedka lagu geynayey iyo gunaanadkeeda lahaydba waa cid gaara waxaanu leenahay mudane wasiir soomaalidu waxay ku maahmaahdaa guryo samo iyo lamadegaba labadaba warkooda ama magacoodaa lagu degaa guryo samo iyo lamadego labadaba warkooda ama magacoodaa lagu degaa dee guri barwaaqaanu ku naqaano guryo samo ayaanu moodnay magacaa oo guri barwaaqo waxa baan isna waa guryo samo oo waa meel wanaagsan waxba halkaa u dhaafi maayo waxa weeye mudane wasiir dee haddii mas ku heleen oo marxalad iyo minid iyo maalmo ay ku haysteen dee alxamdulilah rabbilcaalamiin waanu aragnaa dhitadii iyo dhaydii annagaa dee wasaaraddii iyo qarankuba u dhamaya dee qaranka iyo wasaaraddii baa dhammaysa oo hareeraha haysataa waxaanu leenahay mudane wasiir dadkii leeriyey ee agaasimo waaxidyada ahaa ee madax qaybeedyada ahaa dee way soo dhaweynaya waa ku hadlo way ku faraxsan yihiin laakiin dhiigga cusub aad sheegayso dee dhiiggii shiliishkii bar baa haray shiliishka weli in baa ku harsan intaa shiliishka ku jirta mudane wasiir iyo wasiir ku-xigeen intaa shiliishka ku hadhay dee ka afuuf inaad intaa ka afuuftaan u baahan intaasu ka soo daadi haddii aad ka soo daadin weydo dee waa alxamdulilah annaguna qaranku maan halkayga baanu shaqada ka wadayna laakiin waxa weeye mudane wasiir iyo wasiir ku-xigeen talada inaad ballaadhisaan oo arrinka ballaadhisaan bay ahayd runtii dee meesha wasaaradda qaranka u adeega muddo badan inta badan waxaa la dhaha wasaaraddu way murataa waa caynkan cidna ma muranto shaqaaluhu waa isjecel yihiin dad isjecelba ayaanu nahay cidda la magacaabayna waanu ku faraxsannay waanaanu soo dhawaynaynaa
laakiin ciddaa shiliishka ku hadhay inta yaro hoose intaasi waxay u baahan tahay in la horgufo oo hubadaa laga soo saaray wasaaradda waa mahadsantii bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdiqaadir xuseen nuur dacar waxaan ka mid ahay wariyaasha ka howlgala wasaaradda warfaafinta siiba radio hargeysa anugu maan ahayn madax qaybeed agaasimo waaxeed iyo la taliyo midna maan ahayn waxaan ka mid ahaa shaqaalaha naftooda hurayaasha ah ee duruuf kasta oo waddanka ka jirta ku samre ee ka shaqeeya wasaaradda warfaafinta wasaaraddan warfaafinta wasiir kasta oo yimaadaa xaalad baa soo gasha wasaaradda xaaladdaas soo gashaa sababtay u soo gasha isagu ma wato wasiirku markuu wasiirku yimaado ee uu shaqada soo galo dad baa duwa oo arsaaqad ka dhigtay oo quuta xaaladda wasaaradda dadka arsaaqadda ka dhigtay waa dadka ugu shaqada liitaa maalinta xaalada jirto ayay wasaaradda yimaadaan maalin kale lama arko dadkaasunbaa duwa waana in kooban wasiirkana duwa wasiirka iyo wasiir ku-xigeenku markii ay noo yimaadeen siduu saaxiibka yuusuf sheegay waxay noo sheegeen in ay shaqaalaha si hoose u waraysanayaan xaaladdoodana ogaanayaan way ka gubteen dadka arsaaqadda ka dhigta xaaladda waddanku arrinka kambayn bay bilaabeen cir iyo dhula waxay sameeyeen siday doonaan baxa ku galaane in ay iyagu halkii caadadu ahayd ay galaan dadkaasi waa laba agaasimo waaxeed laba la taliye iyo hal madax qaybeed dadkaasi waa dadka wasiirka iyo wasiir ku-xigeenku nidaamkii ay u socdeen ka duway ee hudheellada u kireeyey ee fadhiistay ee yidhi kanna iigee kanna ii qor kanna ka saar liiska dhaliishu waa intaa wallaahi shaqaalaha wasaaradda warfaafinta jooga badankoodu waa dad daacada waana dad wada diidan sahay wax u dhaceen waa naftood horayaan intayada halkan fadhida maaha way naga badan yihiin shaqaaluhu waana nala wada dareen wasiirkuna nin wanaagsan oo daacada oo miskiin ah weeyi wasiir ku-xigeenkuna saasoo kaleu ahaa laakiin dhexdaa laga duwo sun baa la waraabiyey mustawihii uu lahaa ee uu socday baa laga duway mudane wasiir waannu kuu mahadnaqaynaa kuwa aad magacaawdayna waannu soo dhowaynaynaa waannu kula shaqaynaynaa sidii aannu wasiirradii hore ula shaqaynay ee kaa horreeyey baannu kula shaqaynaynaa afartaa qof waa sunta wasaaradda ka qaba wasiir wasaaradda warfaafinta kama xumi qof la magacaabay kumana doodayo kumana dirirayo qof xilkii laga qaaday laakiin ujeeddadu waxay tahay meelaha ugu halbow horta rag fara badan baa halkan ka hadlay runtii waxaa la yidhi hal libaax arkaysaa ma gudlato macallimiintaydii faraha badnayd baa halkan ka hadashay anigu haddii maanta maxamed muuse ahaan aan ka mid ahaan lahaa ama mas-uuliyiinta aan ka mid ahaan lahaa wasaaradda warfaafinta runtii sida iminka igu muuqato qaladaadkunbay igu muuqan lahayd horta waaxda wasaaradda warfaafintu waxyay leedahay waaxda la yidhahdo radio hargeysa meel la taabtay haba yaraatee ma jirto taa macnaheedu waxa weeye rishafalkii wasiirku inaanu sax ka ahayn meesheeda waxaa haysta nin kaa gar daran oo kaa gar leh nin kaa gar daran oo kaa gar leh oo mar walba adoo ka gar leh baad u tegaysaa waxaad ka tegaysaa adigoo ka gar daran taa macnaheedu wasiirkii wasaaradda warfaafintu waana inta ugu faraha badan ee double egstaas ay shaqaaluhu soo gaabsadeen ay had iyo jeeraale ku ururaan wasiirku agtiisa ka dhow hadday warfaafinta ama muxuuaha shaqaalahan wariyaasha madaxa bannaan u tagaan wuu difaacayo uu soo istaagaa halkan annagu waxaannu doonaynaa rishafalku inuu noqdo mid meel walba taabta oo dhiiri geliya runtii himilaannu lahayn hiigsi baannu lahayn oo han baannu lahayn intiiba maanta waxaad mooddaa inaannu ka madhannahay oo niyad jabin nagu dhacay ma lihin sabti jimco ma lihin iid ma lihin axad ma lihin micraaj ma lihin mawliid ma lihin intaas oo dhan waxaannu ugu shaqaynaa qaranka hawshaasi maalinubay iman doontaa dhiirigelintii maalin kasta waxaa yimaada karbaashka qalbiga shaqaalaha taa macnaheeduna waxa weeye hadba sida uu wasiirku maaha runtii tii ugu horraysay ee wasiirka warfaafinta la hordhigo arrinkan shalay caddaani baa haysta wasaaradda warfaafinta inta jeer oo uu liiskan loola tegay ee uu dhulka dhigay tira way ka badan tahay markhaatiyaalna waa loo hayaa arrinkan waxaan kaga baxayaa rishafalku meel buu lahaa meeshii wasiirku ha ku sameeyey